halkan oo ah xarunta golaha multida iyo wacyigelinta qaranka maanta waxaa lagu qabtay munaasabad si heer sare loo soo agaasimay taa oo ay ku qalin jabinayeen 330 arday oo dhameysay heerka koowaad ee waxbarashada jaamacadda Green Hope iyo sidoo kale 70 arday oo ayana dhameeyay waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda Samuuda oo partnership la ah jaamacadda Green Hope waxaa xafladda ka soo qayb galay mas'uuliyiin ugu horeeyay qosimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe maamulka iyo macallimiinta jaamacadda waalidiin arday iyo marti sharaf kale ugu horeen waxaa munaasabadda ka hadlay maamulka guud ee jaamacadda Green Hope iyo sidoo kale maamulka jaamacadda KIU oo hambalyo u diray ardayda maanta qalin jabisay waxaan leeyahay annagu waan garab taaganahay idaga ma harin midka baajka ah inaan masterna aan la qalqaalno xoog la saarno garab istaagno ka masterkana aan gaarsiino PhD aan gaarsiino waa qorsheena iyo ku talagalkeena waxaan leeyahay marka ardayay haysdeganina oo hadii wad qalin bedelatay hore u soco bahda Green Hope ayaa ku garab taagan. But today we have delegates from different countries. South Africa is represented, Zambia is represented, Kenya is represented. And I promised you within the next 5-10 years, our delegations will have people from more than 20-30 countries because this country is a very beautiful place and a very welcoming place. مسؤولينتي كسعتي دولة الصومالية أيها تنكوذا همبلية أدري قليرة ما أنت هل كان قلن جبسي أردنا ما أنت قلن جبسي أما قلن بدلنيس تعلينتي مدة ما ينوجاده تعلينت مركز لقي ماذا وحبر شذا وحاب الله تعلينت سر أو قبل الله جامعة قل كي كوبات فريسي آيات هاي ستين كوا مصر كأصعدة كوا بجل كقاتنا قل كي كوبات أي فريه كقاتين. waxaan rabaa codkay hadalkayna soo koobo hambaliyada aan ku soo koobo maadaama uu madaxweynaha uu mas'uul ka yahay gudoomiyaha golaha shacabka oo hawl badan leeyahay inaana ku dheeraan xafladeeda maalin hambaliyo waay gudoomiyaha guud ee jaamacadda Green Hope Professor Hussein Tuuxow iyo sidoo kale kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo xafladda soo xiray ayaa hambaliyo u diray ardayda maanta ka qalin jabisay jaamacadda ayagoo u rajeeyay mustaqbal ifaya runtii sharaf weyn bay inoo tahay ummadda Soomaaliyeedna sharaf bay u tahay in ardaydeeni maanta tirada la eg ay qalin jabinayso ayagoo oo laba dafcadood ka qalin jabinayo dafcada 12aad iyo 6aad oo kala ah baajka iyo master degree ay qaadanayaan runtii sharaf weyn bay inoo tahay macallimiinta mas'uuliyiinta maamulka iyo waalidiinta ardaydaas duruufihii la Soomaaliyeed ogahay ilaa heerkaas ku soo dadaalahay dhamaantiin waxaan leeyahay mahadsanidin kulliyadaha laga qalin jabinaa afar ay ahaayeen waa kulliyadda health science kulliyadda economic and management kulliyadda engineering and computer science kulliyadda criminology and security studies afartaas qaybood ayay ahaayeen marka waxaa aad iyo aad mataqaanaa aan u faraxsanahay ardayda maanta halkan xafladooda qalin jabinta lagu qabtay waxaa qayb ka ah ayaan aadan ciise oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala warbaahinta qaranka maalin weyn ayay maanta agteeda ka tahay aniga iyo bahdii aan inta muddada waxaa isla soo baranaba maalin farxadad ayay noo tahay wallaahi aad iyo aad aan uga faraxsanahay inaan maanta ka qalin jabiyo heerkeeda koowaad waxbarasho bachelor degree Cabdulqaadir Fantastic warbaahinta qaranka